kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba ay sarag maqalka iyagu idin ka soo gaarayo kuna soo dhawaada warka habeenimo ee telefishinka RTN oo faahfaahsan aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi weheliya oo wasiiro iyo xildhibaano ka kooban ayaa u ambabaxay wadanka Qatar halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ay uga bilaaban doonto booqasho 2 maalin qaadanaysa محمد حسين محمد وريا تلفزيون كارتين يا فافاهنيا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa goordhow u ambabaxay dalka Qatar gaar ahaan caasimadiisa Dooxa booqashada madaxweynaha oo ah mid rasmi ah ayaa ka dambeysay markii uu martiqaad ka helay amiirka dalkaas waxaana booqashadiisa qaadan doonta 2 cisho madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmi doona amiirka Qatar oo ay yeelan doonaan shir 2 geesood ah labada dal ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan heshiisyo taariikhi ah oo ku baxaya malaayiin dollar sida dib u howlgelinta shirkadda Somali Airlines sidoo kale Qatar ayaa Soomaaliya ka taageeri doonta dhinacyada dib u dhiska iyo horumarinta mashaariicda waa booqashadii labaad oo madaxweyne Farmaajo ku tagi doono dalka Qatar iyadoo sanadkii hore uu booqashadiisii u horeysay ku tagay hase ahaatee booqashadan ayaa ku soo aaday xilli uu taagan yahay khilaafka khaliijka iyo go'doominta ay dalka yar ee Qatar saareen xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta Soomaaliya ayaa saameyn ku yeelatay khilaafka khaliijka oo ay horey mowqif dhexdhexaadnimo ah ka qaadatay hase ahaatee waxaa lagu dhaliilay in dowladda Soomaaliya ay ka baxday dhexdhexaadnimadii oo ay la safatay dowladda Qatar marka loo eego xiriirka dhow ee ka dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Qatar